codka xagee laga soo gataa codkee sidee nacam waxaad ka soo dhex muuqatay taxanihi arday waliba waxaan ku aragnay door adoo xabsi ku jiraan ku aragnay say wax jiraan wax noo sheeg walaalo waa ogta hooyo horta sideedaba ilmaha ay dhashay wax kasta ay ku difaaci karto way ku difaacaysaa aniga wiilkaygaas yar ee 16 jirka ee agoonnimada aan ku soo koriyay hees dareen kugu leh oo marka aad hadda dib u dhageysatid oo heesahaaga ka mid ah aad waqtigaas alla ilaahay soo celiyay waxbaan ka bedel lahay aad istiraadid ma jirtaa jacayl qof jacayl aan soo noqdo doo ku dhaw waligaa baa ka dhageysan waqtiga tagay salaam alaykum mac salaam bararugaya bartamaha habeenkii ano beerka xunshadu assalaamu calaykum saaxiibada qiimaha leh soo dhawaada meel kastoo aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada janalka nala farax intaas ayaan ku soo koobayaa furitaankeena maanta waxay la joogtaa walaal qiimo badan fanaanadeena iyo qof aan muddo mataqaanaa maanta oo kale aan la raadinay inaan waraysigaan oo kale aan la yeesho qofka idin sheegayo waa caashakiin cilmi xaashi waa fanaanadii gobolada waabari marka hore soo dhaw waan ku leeyahay caasho marka xiga su'aashayda ugu horeysa hadaan ku weydiiyo waxay noqonaysaa codka xagee laga soo gataa codkee sidee nacam caasho codka xagee laga soo gataa markaan ku yiri waxa laga yaabaa inaad mataqaan su'aashaas aad si kala aad u aragtay waxaan rabaa inaan noqdo fanaan codka xagee ka soo gataa okay fanaan macnaha heesaa inaan noqotaa rabtaa okay horta cod la soo gato oo inta suuq loo tago la soo gato ma jirin laakiin iyo hadda arrimo kale nagu soo biiray oo tiknoolajiyadan casriga ay keentay oo ah inta wax la isku geegeeyo in qof xataa wax haday qayliso waxba laga duubaa dhow iska macaanaadaan laakiin sideeda kale runta markaan ka hadalno isu keenkaas markaan ka nimaadno waxaan waa hibo ilaahay qofka siiyo oo haybad isaga oo u dooro waay codka oo ku heesayo laakiin haddii aad rabto inaad waayahan dambe uun iska dhex orordo dadka alaabtaas isu keenka tagaysa waan laga duuba wari dhamaantiis waxay leedahay fanaan waa noqon kartaa haddaa ugu tala gashid hadalka ma taagna oo jeebkaagan ay wax kugu jiraan lacagtaada ku wado qol mugdi isaga dhex qaqayl hadaa rabto waa laga soo duuba dhag bari yaxay waa fanaan waxay daawadana ma weynaysid wax ku daawado taas halkaas aan ka soo gudbaynaa caashooy waxaan kugu ogeyn fanaanad gobolada qaranka waa bari ka tirsan cod macaan annaga door faneedaa noo joogtay hal mar saan u joognay waxaad ka soo dhex muuqatay taxanihii arday waliba waxaan ku aragnay door adoo xabsi ku jiraan ku aragnay say wax jiraan wax noo sheeg wallahi horta taas dadka yaabay ku wada noqotay horta laakiin markaan kaaga soo bilaabo shaqooyinka aniga aan soo qabtay aniga hal mar ayaan waxaan ka qayb galay markii ugu horreysay fanka aan soo galay anoo cusub oo wax badan aan fahansanayn ayaan riwaayad horta heeskii ugu horreeyay qaaday riwaayadu ku jiray laba heesay ahaayeen labadii heesba sheekay lahaayeen maalmihii hore cabsiya ila aad intii aan baroobada ku jirnay laakiin markii riwaayada hal la dhiga maalintii la dhigay markaasaan ogaaday inaan wax jili karo heesi karana tay kale dadka marka xilligaasi oo riwaayadaha la dhigi jiray waa laga soo gudbaa hadda qof walba oo iska heesaa heeskiisu qaada YouTube soo dhigaa oo laakiin riwaayada la daawada jiray oo dadku ay soo galaan ama maaragtay barnaamijyo oo wacyigelinaha loo dhigo ama riwaayada jacayl wixii oo dhan horta waa baaba'een hadda adiga hadda markii filimkan arday ayaa doorkiisa waxaan ku lahaay qaybtan aan xiranahayo xabsiga aan ku jira hal mar dadku ay waaga ku bariyay anoo xabsi dhex fadhiyo marka filimkaas marka aan qayb jileenkii waa aqoonay markii hore inkastoo wax badan ka lumayaan haddana kulay marka wax soo martay ma ku dhibiyayaan filimka marka ma qaybtaas aan leeyahay qoladan ila jeclaysteen inaan matalo qaybtaas aan ka soo dhex muuqday anoo xabsi ku dhex jiro dadku ay leeyihiin maxaa lagu xiray su'aalo maraba waataan soo waday caashooy maxaa lagu xiray horta walaalo waa ogta hooyo horta sideedaba ilmaha ay dhashay wax kasta ay ku difaaci karto way ku difaacaysaa aniga wiilkaygaas yar ee 16 jirka ee agoonnimada aan ku soo koriyay ee aan la soo daalaa dhacay quruxda aragta aan ka keenay
ayaa ilaahay amarkiis dagaal dhacay oo aniga dhibaato loogu hayo wiilkaygu intuu adkaysan waayay oo arrinkaasi ku dhex dhacay qofkaasi gacantiisa ku baxay hooyo ahay marka qoxi aan ku soo tiiri tacabeelay ubaxaas quruxda badan leh weyla ahaan weysinoo xabsi isaga galo aniga marka wiilkayga dartiis jacaylka wiilkayga aan qabo dartiisa xabsiga u galay heesuhu way kala duwan yihiin kuwa dareen ku imaadaan maanta waxaa noo sheegtaa aniga iyo dadweynaha daawanaya muuqaalkan hees dareen kugu leh oo marka aad hadda dib u dhageysatid oo heesahaaga ka mid ah aad waqtigaas alla ilaahay yaa soo celiyay waxbaan ka bedeli lahaa aad istiraadid ma jirtaa horta qofka bini aadamka taariikh waa yeeshaa waxaa jeclaadaa xogaa dhib waa maraa adiga rafaad waa jiraa waa dunida qayb ka mid ah haa laakiin rafaadyadaas heesahaas aan ka qaaday dadka qaar hadda la fiicnaansho macnaha lagu soo celiyaan horta maba ka saayibano waa waqtigaasi waa jir jacaylkaas waa qaaday laakiin hadda waxba badanna kama xasuustaba fahmaysaa laakiin jacayl qof jacayl la'aan soo noqdo doo ku dhaa waligaa baa ka dhageysan waqtiga tagayo salaam alaykum mac salaam way dhaafay way heesaas mid kamid anaga aan dib isaga xasuusanno midku lubigaygu raaco habeenkii hurda kaamalado waxaan salalaa lix jeer dharartii malaamadoodo laabtaan kugu qora xasuus markay ladana u dhigeenu loof caashaq wadaagayaan lageysku casumayaan ayaan kaliiloodayaa la'aanta awadeed mid iga maqan bantaba si aan lahashada u daayo hilowgana uga ladnaado liibaanta ifka ugu mudan goorman wada laadsana heeskaasa ka mid ah waaw qofkaasoo waqtigaas nasiib baad lahayd hadda saaday kuu taal waa tahay waraysigeenaan sii wadaynaynaa caashoy jacaylka hadda say isku tihiin iskuma fiicni hadda caasho ada colaadaada joogta marka hadda wallahi jacaylka iskuma fiicnin inkastoo adduunyadu jacaylka ay maaragtay ku socoto haddana waayahan jacaylka iskuma fiicnin laakiin waa laga yaabaa in maadaama awlaad jacayl ku dhalata aan ahay oo maaragtay aniga dhan baan jacayl iska ahay waa laga yaabaa in jacayl hadda kadib yimaado oo xoogaa waa isleeyahay laakiin baryahan jacaylka iskuma wanaagsan rajada muxume hebelow waxaa ii sheegtaa tala sii haddaan ku dhaho dhallinyarada maanta maxaa tala siin layso tala nuucee ah macnaha tala jacayla ma tii kala cararkaa haddii sida ugu quruxda badan ee loo wada socon karo ama sida ugu quruxda badan ee loo kala xari karo mar bay xal noqotaay haa soo maaha haddii aan ka bilaabo wada joogaan ka bilaabaa waxaan kula tali lahay labada lamaano oo inay isjeclaato ama hadda israbrabo oo meelaha iska wiiwiideynooyaan waxaan kula tali lahay horta inay daacad isku noqdaan danaysiga iska dhaafaan sanadka maanta waxaan bamaqlooyaa baby cash iyo baby love wax la dhaho waxyaabaha oo hadda aan la yaabanahay ka mid tahay marka loofkiina ku ekaada kaashkaashkan iyo filimkan iska dhaaf lacag wax ma tagto waxaa waxtaro jacaylka daacadnimada ku dhisan oo is-aaminaada ku jirto oo kalsoonida ku jirto weligiin ka fogaada danaysiga kuwa ma aragtay filimka beenta isku wadee sanadaha isla soo jeexaye wax ay isu haayaan jirin walaalayaalow gabar haddaa taana gabaray waqtiyuusan kaalamin ogtaa dumarka waqti tirsanay leeyihiin yaa jaaniskaaga ka faa'iidayso qofaa jeceshahay oo fahmi kartid oo la noolaa kartid raadso oo ninow adaa soo haray danyarow adiga waxaan kuu sheegaa sidaadaba runku waan ugu socdaa sidaadaba gabdhaha waqtiga kalluuma walaalo 90 sano ku dhalay waa la ogyahay sariir hadda korta xataa waa aabaa noqonay markii gabdhaha waqtiga kalluuminina gabdhaha oo naxariista saaxiibayaal idin karma wada xumidiin because aabaa noo aheedeen walaala noo tihiin marii u fogaanay laakiin wax wanaajiya gadgadoonkan dhaafa baasha waxaa tartiibiya kalsoonidii jacaylkan ha loo soo noqdo okay waa nalala hadlay kuwii qaata allaha naga dhigo waxaa kaa rabaa heesaan kaa codsanaya hees Khadra Daahir heeseeda ka mid ah waan soo baraarugayaa la yiraahdo waan soo baraarugayaa
bartamaha habeenkii ano beerka xunshadu wakaa bistay weeye cudurkii igu sii ballaadhe boqolyow madaaye aan badbaadshe haddii aanan balaayo bulkayga ka geline maridana xijaabanane bidhaantay adweydide يا سلام يا سلام عاشو هذا وما هتصنتهاي صاحبة قيمة مeel kastoo aad joogtaan walaasha caashakiin aad ayaan uga mahadcelinayaa muuqaalkan kooban ee waraysiga iska faniga ah ee naga aqbashay muuqaalada waa soo badan doonaan caasho iyo anigana insha Allah muddo badan waa soo wada muuqan doonaa sidoo kale waxaan rabaa bahda nala farax inaad booqataan channelka walaasha caashakiin iyo sidoo kale page-keeda caashakiin cilmi muuqaaladu waa badan doonaan muuqaalo waxa way mataqaanaa hadda ma tiri karin laakiin jilitaanka xitaa maadaama maartay caasho aad soo aragteen annagana wax badan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wax badan wada duubno muuqaalo riwaayada ah kuwa short iyo intaan ka gaarno musalsalaadka gaaban intaba inaan wada samayn doono haddii Ilaahay idmo caasho aad u mahadsantahay walaashay adiga mudan walaalkay ku soo yaaca